السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحمد لله ما تصونك وسقال إله يوم هذا إسكاله صونكنا أحبتي في العقيدة جهدي يصور بدن الأباهن هاي حاي لي صونك مع الماء ورئيسة قفك حلقة أبا إنه حيس بدن أقوى ومحالي هذا وآد مركو مقل رمضان كي يسود واتي آد وحيسايا مركي لسوا قارن وحلقة أبا توانك مع الماء ورئيسة مركو حقات دداله كدبنو إسديبا marka inaad isdhiibto lama rabo inaad isdhiibto aad daciifto lama rabo marka soonka dadka sidiisaba waxay u kala qaybsamaan laba qayb. dad waxaa jiraan soonka ka hor dadaal iyo khayr iyo wanaag taacada ilaah subxaanahu wa tacaala ku dadaala. dad waxaa jiro soonka ka hor oo masaajidka marmar iska imaanaya quraanka laga yaabaa in jimcihii hal jeer isku aqriyo bal laga yaabo xataa quraanka xataa inuusan aqrininba soonka markii la gaaro kaliya xogaa kitaabka inuu furo oo xogaa wax aqristo. marka dadka labadaas nooc waay. marka kuwan mar walba ramadaanka ka hor ee taacada ku dadaala markii bish ramadaan la gaaro dadaalkii sii badiyaan khayrka iyo wanaagga ay sii badiyaan waxayna xoojiyaan bisha dhan inay ka faa'iideystaan. dadkan kale maxaa la yiraahdaa aan soonka ka hor masaajidka badan aan imaanaynin oo cibaadada aan ku dadaalaynin quraanka iska fogeeyeen dadkaas waxa waay xiisaha ramadaanka ay qabaan. waxaad arkaysaa maalmo ugu horeysa markay xoogaa dadaalaan masaajida ay wada buuxiyaan kadib haddii waxay u bilaabayaan si tartiib waxaad arkaysaa way ka yaraanayaan. waxaa masjidka ku haraya marka dadkii ehelka u ahaa asalka ee mar walba taacada iyo khayrka ku dadaalayaan ayaad arkaysaa marka kuwaas keliya haddana masaajidka inay baaqi ku noqonayaan. idan walaalayaal saas lama rabo marka inaad noqoto qof ramadaanka oo ramadaan caabuda bis oo maalmo ugu horeysa oo xiisa maxaa la yiraahdaa aad soo masaajid aad soo gasho lama rabo. waxaa laga rabaa fursadan qiimaha badan oo ilaah ku soo gaarsiiyay inaad ka faa'iideysto laga rabaa. haddaad ahayd qof sigaar cabi jiray bishaan waa bishaad ka faa'iideysan lahayd aad go'aansan lahayd maxaa la yiraahdaa aad iska dhaafi lahayd sigaarka. maxaa yeelay soonku waxay ku siinaysaa fursad aad u qiimo badan. jaad hadday noqoto sigaar hadday noqoto ama doori kale haddaad isticmaasho tubaakada ha noqoto bishaan waa bishaad ka faa'iidaysan lahayd. soonka markaad sooman tahay subaxdii 10 saacadood iyo bar meelaas laga bilaabo ama 11 laga bilaabo subaxnimo ama 5 subaxnimo markii laga bilaabo ilaa laga soo gaarayo maqribta waad awooday waad u dulqaadatay waad u sabartay inaad bahashaas mandooriyada isticmaalaysa la'aanteed inaad joogto. marka habeenkana haddaad ku darto oo si tartiib aad u yareyso tusaale maalinta ugu horeysa oo kale kuma dhaha yani kulli hal mar wada dhaaf waxa laga yaabaa inay kugu adkaato laakiin si tartiib waxa sameynaysaa maalmaha ugu horeysa waa yareynaysaa maalinta ku xigta waa si yareynaysaa waxaa isku dayaysaa inaad aad u sii yareyso ilaa heer aad gaarsiiso aad ku dulqaadato inaad sidiisa iska dhaafto aad u dulqaadato aad ku sabarto maadaama subaxdii intaasoo saacadood aad ku dulqaadatay aad sabartay aad iska dhaaftay isku day habeenkiina saacadooyinka ka aad soo jeedi doonto inaad naftaada xakamayso isku day. marka bishaan haddaad dhaaf weyso aad ka faa'iidaysi weyso waxaa adkaanaysa bilaha kale inaad iska dhaafto. waayo bishaan waa fursaddii ugu weyneed aad ku dhaafi lahayd waxyaabaha maandooriyada iyo waxyaabahan kale. idan axibati fi lcaqiida ahlu taaca ahlu khayr waxaan leeyahay khayrkiina meesha ka sii wada. kuwan kalena waxaan leeyahay walaalahay kalena bishaan ka faa'iideysta xiisaha iska daaya masaajidka wada buuxiya sidaad maalmo ugu horeysa aad u buuxiseen ramadaan haddii laga baxo sidaas oo kale u buuxiyo maalmahan soo harna sidaas oo kale u buuxiyo. tartanka ha ka harana tartanka lagu jiro ha ka harna idinka. idan halkaanaan ku joojinayaa waxaan idinka codsanayaa inaad sii sheergaraysaan aad sii faafisaan si dad kale ay ka faa'iideystaan idinkana ajar iyo xasanaad aad u heshaan. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.